waxay ahayd habeen farxad badan taariikh la miilaabana u ah fanaaniinta kala ah Maxamed Axmed Qomaal Hiba Maxamed Udoon Hiba Nuura Maxamed Cabdi Aalto Farxaan Xidig iyo Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub kadib markii boqolaal dadweyne ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Warta Nabadda mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo soo dhaweyn ugu sameeyeen xarunta degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho soo dhaweyn kadib ayaa alfanaan Maxamed Axmed Qomaal waxa uu soo bandhigay heeso ugu talagalay weyneynta maalinta labaad ee Ciidul Adha iyadoo dhammaan dadweynihii munaasabadaasi ku sugnaana ay jecleysteen heesahaasi Hiba Maxamed Udoon Hiba Nuura oo muuqatay in bandhig faneed ay ku soo bandhigayso xarunta murtida iyo madadaalada ee National Theatre 22 sano ka hor ayay soo bandhigtay heese ka turjumaya qiimaha ay nabadda u leedahay bulshada Soomaaliyeed deeqa Cabduqaadir gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee dawladda Soomaaliya ayaa u sheegtay dadkii munaasabada ka soo qayb galay in degmada Warta Nabadda ay u heelan tahay soo dhaweynta dadka muga ku leh bulshada Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanayo ee wadaniga ah ee dalkooda hooyo jecel kuwa kalena waxaan leenahay sida Qomaal iyo Hiba Nuura iyo Sangub ee u yimaadeen u imaada qof walba saacad u dhimana malakamoodka waqti uu leeyahay kusoo dhawaada dalkiina hooyo yuusan barafkiin ku dilin meel cidla dadka degan gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaa nabadan yarta ah ee aan ku raaxaysanayno nimankii nabadiidka waa naga baxeen laakiin qabyaalada hal la joojiyo la soo celin dib dambe ugu soo noqon dalka bombala tuuro iyo qof la dilo waxba qiimo ma laha waxaan kaloo hilmaamay inaan salaamo walaashay ayaan oo sanadkii hore markay timid iyo sanadkan aragtay isbedel badan waxaan leeyahay ayaan ku soo dhawaado dalkaaga hooyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee gobolka Banaadir Mudane Cali Axmed Guure ayaa ugu baaqay fanaaniinta kale ee ka maqan dalka inay dib ugu soo laabtaan si ay uga qayb qaataan ololaha curdunka ah ee lagu nooleynayo fanka Soomaaliyeed xafladan oo labada qaybood leh in ma ciidi farxadda weyneed dadka muslimiinta hadanahay ciidaha u waaweyn aynu leenahay waa Ciidul Adha iyo Ciidul Fitr waa laba ciidood oo socod inaha loo socod waxa lagu gaari karna waxay tahay inaynu midnimo dawlad ayaa leh harsado dawlad ayaa nagu filan marka aynu taageerno nabad aynu ka shaqayno wax alla wixii inaynu xafladayno isku nimaado koor imaanaya oo diidaya oo qalaaqal iyo cabsi nagu abuuraya waa inaan ka hortagnaa fanka Soomaaliyeed oo ay bulshadu u aragto inuu yahay midka kaliya ee bulsho wax lagu fahansiin karo ayaa waqtiga kan u muuqanaya in dib loo xusuusinayo dadka reer Muqdisho oo muddo ka badan 22 sano ugu dambeysay bandhig faneed Muqdisho lagu soo bandhigo Aweys Maxamuud Jilco Royal TV Muqdisho